السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan ku soo gudbinaynaa dawo qiimo badan oo xanuunka gaasriga ka cabanayaan bulshada Soomaaliyeed. xanuunkaas oo farabaas ku haya bulshada in fara badan ay la bugto oo la ildaran tahay ay raadinayaan dawadii ay kaga bogsan lahaayeen, maadaama dhakhaatiirtu maalin walba ay ku sheegaan marka qofka la baaro la gaasri baa laga helay dawadii loo soo qoray chemicalkeena ay waxba ka tarweydo oo markaa uu isticmaalo xanuunka uu kaga yardamayo, laakiin halkiis uu ka bilaamayo xanuunku jiro. waxaan haynaa inagoo ku dadaalayna mar walba bulshada Soomaaliyeed inaan u soo gudbino waxyaalaha manfaca u leh oo daawooyinka herbalkaana inta badan ka shaqeynaa ama maalin walba soo gudbina. ayaan maanta halkan waxaan ku soo gudbinaynaa dawo waxtar badan leh oo gaasrida ay kaga bogsanayaan ay kaga ladnaanayaan biidinillah. hada loo yaqaano Forever Herbal Company oo cariga Mareykanka ku taala oo soo saarta waxyaalo badan oo dabiici ah sida waxa halkan ka muuqdo dhan ayada soo saarta aan noqoto waxyaalaha naturalka ah ee la isticmaalo ee jirka la marsado sida kareemada ama cadarada shaambooyinka lagu maydho dhammaan kulligeeda kuwa lagu cadaydo kuwaas oo ayna sharaxi doono waxtarkooda iyo waxyaalaha laga sameeyay mid anagoo sharaxi doona. laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waxyaalaha shirkaddu soo saartay daawada u ah xanuunka gaasrida iyo xanuunada kale sida macaanka iyo dhiigkarka, xanuunada ay la noolyihiin dadka iyo koroniga. marka sharaabkan wuxuu ka samaysan yahay dacar ayuu ka samaysan yahay. dacartuna waxyaalaha lagu daaweeyo ka mid tahay gaasrida ay ka mid tahay olefer gel bay ka samaysan tahay oo dacarta ay ka samaysan tahay sharaabkeedii ay ka samaysan tahay oo aad iyo aad ugu manfac badan xanuunka gaasrida dadka qaba inay kaga bogsadaan iyo xanuunada kale sida xanuunka loo yaqaano macaanka iyo dhiigkarka iyo xanuunada kale soo raaca. waxayna aad u nadiifisaa oo aad u hagaajisaa caloosha iyo dheefshiidka intaan cuntada marto dhan ay nadiifisaa oo ka saartaa sunta iyo jirka ku jirta caloosha oo dibadda u saartaa oo qofka calooshiisa ay ka dhigaysaa calool clean oo aad iyo aad u nadiif caagadan yar iyadana aad aragtaan kale caagadan yar iyaduna loo yaqaano Fili of Green loo yaqaano iyaduna waxay tartaa waa fiber waa kiniin baa ku jira oo isaguna caloosha ayuu socodsiiyaa. waa la isku isticmaalaya iyada iyo caagada kale oo caloosha ayuu si dhib yaro u socodsiinaya dadka bawaasiirta qabana aad buu wanaagsan yahay oo si ay dareemeyn oo casiraad aan lahayn ayuu socodsiinayaa. marka calooshuna haddii qofka socoto xanuunada waa ka baxayaan. marka labada waa la isku isticmaalayaa. sida loo isticmaalayo waxaa la isticmaalayaa subax hore aroortii ayaa la isticmaalayaa 4 fur ama 6 fur marba inta isticmaali kartaa ayaa isticmaalaysaa. markaad isticmaashii aroorta hore intaad quraacan ayaa isticmaalsaa saacad ayaad ku joogaysaa. saacada iyo barkaas markay ku dhamaatana cuntadaada ay iska cunaysaa oo saas bilaabanaysa. tanna waa la mid iyaduna qofku isku mar ayuu liqayaa waxbad kiniina marka uu liqo iyo tanba habeenkii ay subax ayuu isticmaalaya. habeenkiina sidoo kale intuu qofku cashada cunin ka hor ayuu isticmaalayaa oo saacadii badh ka hor cuntada ayuu isticmaalaya. marka uu isticmaalo kadib ayuu cuntadiisina cunaya uu ku joogo saacadii badh labadaba. kana xabad buu ka liqin kana ilaa 4 fur ama 5 fur buu ka cabayaa karo waa ilaa 6 fur inta ugu badan qofku ka cabi karo oo subax iyo habeenkii ayuu isticmaalaya. marka xanuunkii gaasrida way isteeynaysan halkaas suuqiin dambeynaysaa maalinta masaarki meesaan aan noqoto calooshii magaranaysaa neeqaskii iyo dibiradii iyo caloosha dheefshiidkeeda wanaagsaneyn dhammaan way isteeynaysan sidii waxyaalihii kusoo rugmanayay biyo kululaa qofku dareemayay bog xanuunkii dhammaan kaga ladnaanaya. calooshuna waa calool nadiif qof noqonaya calooshuna waa soconaysaa xanuunadii oo dhan dhammaan way ka dejinaysaa. marka daawada cidii u baahan insha Allah waan soo gudbin doonaa. dad badan oo ku ladnaado waxtar ay noqotay oo way joogaan oo Ilaahay ku caafiyay
waxyaalaha kale aan aragno ee ka midka ah shirkadda soo saartana mid ayaan u sharaxi doonaa insha Allah waxtarkiisa iyo waxyaalaha uu taro. waxaa ugu badan iminka meeshaad ka aragtaan waa kareemo iyo shaambooyin iyo saabuun. marka shaambooyinka iyo kareemadan waxay u fiican yihiin qof kaste oo marsan kara, sida ay waxyaalaha kiimikaalka intay marsadeen wejigoodu uu ka dhalan bedelmay oo ka xumaaday ayay u soo celinaysaa iftiinkoodii iyo waxyaalaha markii hore labeentii ka qaaday dawada ay marsadeen ee kiimikaalka ahayd. waxyaalaha wax natural ayaa laga sameeyay, nadiiftii uu jirkoodu lahaa ay soo celinayaan nafaqadii uu jirku lahaa, sida dadka finanka wejiga ku leh ay ka saarayso oo finanka ay ka hagaajinayaan. dhammaan waan sharaxi doonaa insha Allah mid walba iyo waxtarkiisa mid baan soo qaban doonaa. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa maanta. waxay ahayd arrinkay koobaad aan sheegaynay dawada gaastirida lagaga bogsanayo oo Soomaalidu in badan ka cabanayso. taas ayaan soo gudbinay insha Allah. khayr weyn rajeynaa.